madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni oo la hadlayay golaha garsoorka waddankiisa ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalal aan awood maamul oo wada gaarta dalka uusan ka jirin, taas oo dood badan ka dhex abuurtay bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan, kuwaas oo qaarkood doodahooda ku soo bandhigayay baraha bulshada ay ku xiriiraan, waxaana dadka qaarkood ay ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya sida xildhibaano iyo senataro. madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay inay jiraan dalal badan oo aan lahayn dowlad maamusho, isagoo tusaale u soo qaatay waddanka Soomaaliya. Yoweri Museveni ayaa hadalkan ka sheegay shirka sanadeedka ee hay-adaha garsoorka, isaga oo xusay in Soomaaliya aanay lahayn dowlad maamusho. waxa uu yiri waxaa jira wadamo badan oo aan lahayn dowlad, way jiraan laakiin ma haystaan hay-ado abaabulan oo maamula. Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamadaasi. waxaa jira dalal kale laakiin ma sheegayo sababo diblomaasiyadeed awgeed. State means organized authority over the country. You can therefore have a country without a state, and you have got many examples where there is a country but there is no state, there is no organized authority over that land. Somalia is one example. There are quite a number of examples. For diplomatic reasons, I don't want to mention them. madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni markuu hadalkaasi yiri waxaa aad uga hadlay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, mas'uuliyiin, xildhibaano ay ka mid yihiin iyo siyaasiyiin hore xilal kala duwan uga soo qabta Soomaaliya ayaa arrintaasi ka hadlay. dadka ka hadlay arrintaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo sheegay in madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni hadalkiisa uu muujinayo halka ay Soomaaliya joogto, isaga oo dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu baaqay in ay arrintaasi wax ka qabato oo ay la timaado loolanka wadamada geeska Afrika ay u baahan yihiin muujinta in dowlad ku filan dalka oo dhan ay ka jirto Soomaaliya, iyo in caalamka intiisa kale la tuso in Soomaaliya ay leedahay awood maamul oo wada gaarta dalka oo idil. dhinaca kale senator Xuseen Maxamuud oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna waxa uu aad u dhaliilay sida uu warka u yiri Yoweri Museveni, isaga oo sheegay in ay weli jirto nuglaanshaha Soomaaliya ay u nugushahay baahida AMISOM, laakiin taas beddelkeeda ayuu yiri in heerka la gaarsiiyo Soomaaliya aanay gaarsiisnayn, isaga oo sheegay in Soomaaliya ay leedahay awood ay ugu filan tahay in dalkeeda ay maamulato, waxaana uu sheegay inay tahay wax aan la aqbali karin hadalka Yoweri Museveni. sidoo kale waxaa jiray dad fara badan oo ku kala qaybsanaa arrinta Yoweri Museveni, taas oo qaar ay ayidsanaayeen in awoodda maamul ee dalka ka jirta aanay ahayn mid wada gaarta dalka oo idil, halka kuwa kale ay u arkayeen gaf uu Soomaaliya ku sameeyey maadaama uu isticmaalay kelmadda ah in Soomaaliya uu tusaale u soo qaatay wadamada kale ee uu sheegay inay jiraan in ay leeyihiin awood maamul oo waddanka dhan aan wada gaarsiisnayn, inuusan u sheegi karin sababo la xiriira diblomaasiyadeed, taasoo dad badan ay ku micneeyeen sababta Soomaaliya uu si cad ugu qeexay halka wadamada kalena uu uga gaabsaday arrimo diblomaasiyadeed awgeed. Uganda ayaa xilligan waxaa ka jooga Soomaaliya ciidamo badan, gaar ahaan kuwa ugu badan ee AMISOM magaceeda ku howlgala, waxaana ay ilaaliyaan xarumaha dowladda sida madaxtooyada, dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku saabsan hadalka madaxweyne Museveni, balse waxaa loo arkaa in aanay dowladda ku degdegi doonin go'aanka ay ka qaadanayso hadalka Yoweri Museveni oo ay xilligan gaarto marka loo eego Uganda oo ka mid ah dalalka gobolka ugu xoogan, ciidanka ugu badan ee AMISOM.